waxaan marnaa qodobkii ugu dambeeyay ee ah maadaama sidii cilmiga guud ee dunida ku dhaqanta aan ka hadalnay qaybta ugu dambeysay ee ah tala bixin la xiriirta kaalinta ay u baahan yihiin dhallinyarada Soomaaliyeed si ay uga qayb qaataan nabadda. Dhallinyarada Soomaaliyeed maadaama ay inta ugu badan ay ku soo barbaareen dal oo burbursan colaado ay aafeeyeen qiyaastii inta hadda Soomaaliya xurta tahay inta ugu badan waqti colaadada iska ahay bulshadii qabiil oo salka ka dagay waxaan soo jeedinaynaa tala bixin la xiriirta qaabka loo maareyn lahaa qodobadaas. kow waxaa ugu horeeya dhaqdhaqaaqa nabadda Soomaaliyeed wuxuu u soo jeedinayaa wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in manhajta qaranka ay ku soo darto maaddo ka mid ah maadooyinka caadiga ah la dhigtay ku soo darto maaddo la xiriirta nabadda oo peace education ah sida aan wada ognahay dunida oo dhan oo maxaa colaado aysan ka jirin maanta waa lagu dhigaa peace education. tusaale ahaan Soomaaliya kaleeto waa wadal u nugul colaadaha muddo dheer ku soo jira colaado waxay u baahan tahay in bulshadii la baran nabaddu waxay tahay. sidaas darteed waxaan codsanaynaa in lagu soo daro manhajka qaranka maaddo la xiriirta ama aan si kale u dhahe peace education. waxaan ku tala bixinaynaa in la bixiyo ama la sameeyo seminaaro joogto ah iyo wacyigelin la xiriirta baahiyaadka loo qaban nabadda si dhalinyarada loo fahansiiyo wax badan oo la xiriira nabadda. waxay u baahan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed in la siiyo tasjiilaad ay ku bartaan ama ugu xaadiraan goobaha waxbarashada si cilmi korodhs u sameeyaan dunida kale. sidaan wada ognahay dhalinyaradu ma awoodaan inay xiriir la sameeyaan maxayada caalamiga ah ee bixitaanada nabadda si ay wax badan uga kororsadaan. sidaas darteed ka bulsho ahaan waxaan u baahannahay in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo laguna wacyigeliyo muhiimadda ay nabaddu leedahay si aysan u noqon kuwa looga faa'iideysto colaadaha beddelkeedana ay u noqdaan kuwa damiyo colaadaha xalliyana dhibaatooyinka si loo gaaro nabad waarta. waxaan nuur weydiinayaa wixii qodobbaa uu ku dara asigana soo dhowow. waa mahadsantahay Ustaad Bile. qaybtan inta badan tala bixinta waxay la xiriirtaa mar walba waxaan soo sheegnay sababta aan u dooranay dhalinyaradu oo ah dadka aasaaska u ah marka la rabo in bulsho la bedelo dhalinyarada la bedelaa marka hore. haddii dhalinyaradu isbedelaan waxaa bedelmi doona bulshada soo socota future-ka ayaa bedelmi doonta. waxay gundhigu noqon doonaan bulshada mustaqbalka soo socda inay bulsho nabadeed noqoto. waxaan ka hadalnay dhalinyarada iyo sida ay ugu waxyeeloobaan adiga ku agoontoobaya adiga ku shaqo beelaya adiga ayaa ku waxbarasho weynaya adiga ayaa maaragtay colaad kastoo dhacda dhalinyarada ayaa waxyeelada ugu badan ay ka soo gaari doontaa sababtoo ah colaaddu waxay saamaysaa mustaqbalka cidda mustaqbalka lehina waa dhalinyarada. sidoo kale waxaan ka hadalnay qodobkii ahaa ku lug lahaanshaha colaadda ee dhalinyaradu marka xaalad colaadeed ay ku barbaaraan inta badan inay cidda dambiilaha noqotaa waa ayaga. qofkii soo diray waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo aniga cidina iguma arag waxaan anoo ka shaqeynay laakiin cidda gacanta inta badan dambiilaha noqota waa dhalinyarada. sidoo kale waxaan ka hadalnay awoodda dhalinyaradu ay u leeyihiin dhismaha inay nabad ka shaqeeyaan oo ay dhisaan. waxaan ka hadalnay kaabayaashii ay u baahnaayeen si ay nabadda uga shaqeeyaan. intaas markaan ka soo hadalnay haddaba waxaan u gudbaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa maanta la gudboon. dalkaadii waxaad u jeedaa in muddo 30 sano ka badan ama taariikh ahaan muddo dheer ka hor in jawi colaadeed uu isaga jiray dhaqanku dhaqan iska violent inuu ahaa. sidaad u baahan tahay inaad u bedeshid marka maanta maxaa kula gudboon. waxaa kula gudboon in aad taariikhda dib u raacdid xornimo Soomaaliyeed oo aan dhaqaale loo haysan oo dad badan oo aqoon-yahano aan loo haysan oo aan loo haysan dhaqdhaqaaq tiro badan iyo xorriyad lagu sameeyo ayaa waxaa la curiyay 13 wiil iyo wax la mid ah. haddaba dhalinyaro tiro badan oo aqoon-yahana jaamacada ka baxay wada shaqaysta intooda badan fursado badan u haysta inay isu yimaadaan fursado badan u haysta inay ololo nabadeed sameeyaan ayaa maanta dhammaantood curila dalkii oo xora oo dadkiisu iswada jecel yihiin inay yiraahdaan waraan isdayno nabad ka shaqeyno ayay sameeyeen. waa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta eragaas uma qaadno. waxaan rabnaa marka in 13 dhalinyarada ahaa ee sameeyay xorriyaddii oo dhan inay keenaan iyagoo dhaqaalahoodu yar yahay aqoontoodu yar tahay dhaqdhaqaaqooda iyo fursadda ay ku socon karaan ay yar tahay inaan intan nolosha dib ugu laabanno. waxaan rabnaa dhalinyaradu waxay ahaa jirtay aan ku laabanno. waxyaabaha kale oo aan rabno inaan tala bixin ka sameeyno waxaa ka mid ah dhaqanka Soomaaliga ah qofka dhalinyarada ah waxaa laga yaabaa adoo 25 jira 30 jira jaamacad dhameeyay inaad tiraahdid waxaan u baahanahay in la kabo. laakiin dhaqanka Soomaaliga ah muxuu yaqiin dhalinyarada muxuu ka ahaa
waxaa jiray gabay waalidiintu inta badan ay ku baraaruji jireen dhalinyarada oo ahaa wiil 12 jira hadduu lali ahaa waay gabagu waa tiro badnaa inkastoo qaybta dambe mar walba jawigii jiray ku miisaamayeen oo colaada ahaa maaragtay marka waxa inta badan qaybtiisa dambe uga hadlayeen colaadaha iyo qaabka oo qayb qaadan karo laakiin anagu ma rabno waxaan rabnaa inaan uga qayb qaado aan maaragtay uga faa'iideysano 12 jirka ayay ku xisaabtami jireen inuu nolosha isbedel ku sameeyo inuu deegaanka uu ku nool yahay iyo community-giisa qofka dhex muuqdo oo noqdo haddaba 12 jir haddii noocaas laga rabay 25 jirka jaamacadda dhameeyay dhowr iyo 10 jirka dugsiga sare dhameeyay ma haysto cududaar uu ku yiraahdo waxaan u baahanahay in la kaabo ama in la kabo si aan dalkayga wax uga bedelo uma baahnid waxaad u baahan tahay dhiiranaan kaliya iyo inaad ogaatid mas'uuliyadda ku saaran iyo haddii aad maanta wax bedeshid cid ku nacfinaysa in adiga iyo jiilka dambeeya tahay ugu dambeyn waxaan rabnaa inaan ku soo gabangabayno inaan niraahno dhalinyarada Soomaaliyeed qaybo badan oo kamid yihiin maanta waxa ku jira hanka ah in isbedel ay sameeyaan oo nabadii dalka dhaqdhaqaaqi maxaan ku yiraahdaa wax barashadii dhaqaalihii inay ka muuqdaan bulshada kacdoon ah ayaa dhalinyarada ku jira laakiin waxaan rabnaa ma midaysna kacdoonkaas waxaan rabnaa dhaqdhaqaaqa nabadda Soomaaliyeed inay dhalinyaradu ay noqoto fursadii iyo bilowgii ay ku muuji lahaayeen awoodooda firfircoonidooda hal abuurkooda inay noqoto haddaad abawaan tahay haddaad tahay maxaan ku yiraahdaa qof kale oo activist ah oo dhalinyarada iyo abaabulkeeda ku fiican haddii aad tahay filli kasto nolosha kamid oo aad ku jirtid inaad nabadda ka shaqaysid ayaa asal u ah shaqadaada firfircoonidaada wax galmaadkaadu ma muuqan karaan haddaadan jawiga dalkaada ama jawiga bulshada aadan mid nabdoon aadan ka dhigin marka wax walba aan nabadda ka hormarino si aan u noqono bulshadeedii dhalinyaro bulshadoodii bedelay si aan u noqono ugu dambeyn waxaan leenahay oo aan anigu ku soo kooba qof kasta oo dhalinyaro ee Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inuu noqdo midka nabadda dalkiisa asagu ilaaliyo ha noqon qofka nabadda dalkiisa laga ilaaliyo ee noqon qofka ilaaliya asagu ma santiin